waa in nimankaas si siman oo isku mar ah oo one strategy oo la isla wada socdo waxaan u baahanahay in lagu qaado oo la iska dhacsho markaas nabadgelyada la helo waxaa la soconaya haddii la yiraahdo oo aan ugu talagalnay in meel kastoo la xoreeyo in the stabilizationkiina uu la socdo programkaas oo marka la xoreeyo waan la hadalnay cid kastoo na caawisana waan kala hadlaynaa waxaana loo qabanayo waxaa weeye waan xoreynaynaa laakiin markaan degmada xoreyno tuulada xoreyno waxaan rabnaa 4 shay in la helo dhowr shay number 1 biyihii la cabi lahaa waa in la helaa iskuulkii yaraa ilmuhu tegi lahaayeen waa in la helaa ya isbitaalkii yaraa iyo MCH-kii habluha ku umuli lahaayeen ilmaha lagu daweyn lahaa in la helaa loo baahan yahay la helaa station police-kii iyo maxkamaddii in la helana waa laga maarmaan dadku inay governance-ga in ayagu ay samaystaan oo isdoortaan oo xukunka la daadajiyo ayadana waa laga maarmaan intaas oo isla socota waxaa korka kaga xayndaaban dib u heshiisiin oo dadka markaa intaa u sameynaysa macnaheeda dib u heshiisiinta ku dhex wadaa waa samays maamul kasta marka la sameeyo la daadajinayo waxaa dhex soconaya dib u heshiisiintii hadday beeluhu wax isu qabaan hadday dadku wax isu qabaan haddii dad Soomaalidaas heshiiska ay inay wax ugu dambaysta inay maamul ay leeyihiin oo servicekaas u sameeyay inay helaan iyadana waa laga maarmaan inta haddii la helo oo dadka Soomaaliyeedna ay halkaas dhaqaaqaas ay sameeyaan oo waxaan aniga aaminsanahay in kacaankaas hadduu dhasho oo shabaab diidka ah oo xornimo doonka ah oo nolol doonka ah oo Soomaalinimo doonka ah oo lagu midaysan yahay waxaan aaminsanahay already nimankaas muddo kooban in la isku dhaafin karo nimanka haddayna dhaafaan dadka Soomaaliyeed oo dad firfircoon waa dad waxgal ah wadankooda ay ka dhisanahay runtii waxaa inoo imaanaya investment oo foreign investment oo meel Soomaaliya meel laga saniyo oo meel laga soo galaa lala yahay oo nabada waxa weeye adduunka keensanaya shaqada abuurkii baa imaanaya innaga waxay noo suurtagelaysaa markaa dawlad isku filan oo territory-geeda ayada ilaashato xor rasmi ah inaan noqon waxaan awoodi karnaa inaan dastuurkeena dhamaystirno waxaan awoodi karnaa inaan axsaabteena samaysano waxaan awoodi karnaa inaan doorasho qof iyo cod xor ah oo xalaal inaan samaysano waxaan heli karnaa oo awoodi karnaa inaan noqono regional power oo aad ogtihiin haddeertaan Soomaaliya meeshay ku taalo muhiimadda ay leedahay iyo dadkeedu muhiimadda ay leeyihiin haddii ay u helaan inay dawladoodana si fiican u istaajiyaan nabadgelyadooda sugtaan waxaan rajaynayaa muddo kooban inay Soomaaliya ay noqon doonto qibladii Afrika iyo caalamkaba oo ay regional power noqonayso oo halkan la isugu wada imaan doono rajaynaa waa Rio laakiin waa Rio la xaqiijin karo si degdeg loo xaqiijin karo haddii aan isbedelno oo dadkeena isbedelaan isbedelkuna qofku ka yimaadaa go'aan qof gaaray inuu ka yimaadaa marka waa inaan go'aan gaarnaa oo aan shaqadaas qabsanaa inteeni ku dhimatay waxaan aaminsanahay in Ilaahay u naxariisanayo Ilaahay idinkiis intii kalena nolol wanaagsan oo karaamo leh oo sharaf leh ayay ku noolaanayaan waa in musuqmaasuqa la dirino economic reformskii la waday waa wadayna oo dawladdu xoog bay saari doontaa haddii la yiraahdo laakiin focuskeedu waxaa waaye oo dawladda iyo shacabkeedu iswata inay xoroobaan dalkan waa in la xoreeyo codsigaygu waxaa waaye dadka ugu muhiimsanaa tihiin hawshaas markay timaado waxaan codsanaynaa dalkan waa inaga wada dhexeeya waa wada leenahay dhalinyaraad tihiin kulligiin mustaqbal aad leedihiin berri halkan aad imaan anigu fadhiyaad soo fadhiisanaysaan dalkana dee suludaadka jira dawladda ama awoodaha jira midda afraadaad tihiin marka awoodda afraadaad tihiin waxaan codsanaynaa idinkoo dhaliilaha dawladda sheegaya idinka oo dee dawladda aan u shaqaynayn bulshada u shaqaynaya waxay dawladdu ku qaldan tahay sheegaya laakiin markay timaado dagaalka iyo nimankaas in la diriro
iyo dalka in la xoreeyo iyo dadka in la xoreeyo waxaan aaminsanahay inaydaan neutral ka noqon runtiina waa dadaashaan waan idinka mahad celinayaa naftii huranimada iyo muddada dheer aad kusoo shaqaynayseen